khilaaf ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle oo sii xoogaystay guddiga arrimaha fatahaadaha ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa soo saaray jawaab faahfaahsan oo daba socota eedeymihii uu jeediyey wasaaradda maaliyadda dowladda federaalku kadib markii ay dhowaan wasaaraddu ka dalbatay in tusaalooyin ka bixiyaan eedeyn la xidhiidhay mashaariic looga hortegi lahaa fatahaadaha uu geysto webiga shabeelle guddiga arrimaha fatahaadaha ee dowlad goboleedka hirshabelle markii uu arkay war-saxaafadeedkii uu tirsigiisu ahaa MOFMD352021 ee ka soo baxay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya uuna muuqday mid isdifaacida waxaa muhiim noqotay in guddigu xog sax ah oo dhammaystiran la wadaago bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga hirshabelle u qaabilsan ka hortagga fatahaadaha guddigani ayaa qoraalkiisa ku xusay 6 qodob oo faahfaahin looga bixiyey marxaladihii uu soo maray mashruucani muranka ka dhex abuuray hirshabelle iyo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka waxaana lagu yidhi 6da qodob ee guddigu ay soo saareen sida tan bangiga adduunku waxa uu ansixiyey mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka taariikhdu markii ay ahayd 15 May 2020 heshiis is-afgarada ayaa waxaa kala saxeexday wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabelle taariikhdu markii ay ahayd 19 August 2020 oo ka soo wareegtay 9 bilood waxaana hubaal ah haddii mas-uuliyad la iska saari lahaa in lagu fulin karay mashruucan muddo kooban dhibaataduna kuma dhacdeen ummadda hirshabelle Janaayo 2021 ayay dowladda hirshabelle waxa ay digniin ku aadan fatahaadaha oo laga baaqsan karay u dirtay mashruucani oo ka hortagga fatahaadaha u gudbisay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo ra'iisul wasaaruhuna u yeedhay wasiirka maaliyadda si loo fududeeyo howlaha looga hortagayo fatahaadaha webiga shabeelle nasiib darre howlahani waxaa culisleeyey wasaaradda maaliyadda iyo howlwadeennadii loo xil saaray mashruucani waxaa la ansixiyey qandaraaskii ugu horreeyey ee ka hortagga fatahaadaha webiga shabeelle isbuucii 1 ee May 2021 xilligaasi oo aan suuragal ahayn in wax laga qabto webiga oo waxaa bilowday roobabkii iyo fatahaadihii waxaa dhacay waxyaabihii ay ka digayeen dowladda hirshabelle iyadoo weliba aysan bilaabanin wax howla oo looga hortegayo fatahaadaha la xidhiidha mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka dowladda hirshabelle waxay aaminsan tahay waxaa sababay dhibaatada inay tahay dib u dhaca iyo howlwadeennadii mashruuca oo aan fikrad ka haysanin deegaanka ugu dambayntiina war-saxaafadeedka guddiga hirshabelle u qaabilsanaa ka hortagga fatahaadaha ayaa qoraalkiisa ku yidhi dowladda hirshabelle waxay mar waliba u taagan tahay wada shaqaynta iyo u adeegidda ummadda Soomaaliyeed